أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نبض داوده أنت كحرن جنالك سعيد أمكي أوفيشال عاو حمرتي إنه أبوان دادر سولو. هذا واحد والله هذا واحد ما شاء الله. وحرنا أبوان دادر إنه ويدينا سؤال دورة أن ما كبر إنتوا سؤالها حروا أنا وحكوا ويديو أن إنكستو يعني أبوان دايرة فنكا سؤال يريرو كسابسن حاجة حساوها مجاعلك. marka abwaan daadir marka la soo dhawo waxaan rabaa su'aasha ugu horeysa inaan ku weydiiyo oo ah maadaama aad tahay abwaan fanaaniintii hore iyo fanaaniinta hadda kuwee aad doorbidi lahayd dhanka dhegeysiga ama inaad taageerto? والله أنا فنانين تضبط كما حلو فنانين تهري حمدوا ذي يمتوا ذا هذا ما أدى من كل شيء أبوان واحدة ما كما حلو أو يعني ذاتك عند مريه وحمل يسعى له سيب الدليل وتغيير كوسمي إذا عند كهران جعلها fanaaniinta hore waxaan rabaa inaan ku weydiiyo inkastoo fanaaniinta hore aad doorbiday inaad xaggooda aad jeceshahay waxaan rabaa inaan ku weydiiyo fanaanka aad taageerto fanaaniinta hore. والله أنا فنانين تهري وحن تاجر عمود ولا عليه عمود ولا عليه آد نكاستيسيس وقمت على ما هيستو تمام هيسيس أنت بدل كل يوري يستاهل. aniga iyo taageerayaasha ku xiran Saciid MK Official ma nagu fikrada hal hees oo Cumar Dhuule Cali xitaa halaha hore way badiyeen mid ma iska soo qabsaa midi aad u dhageystid noo soo qob halaha hore oo kaliya karna. okay Cumar Dhuule tafra badan yahay inay yahay jamaalkiyo jogaba u dhalatay jalaqsani wariga muuqal jimigaagu galabtu jayahay saari igu yidhi majaala jiraan haddanahay masyaraa jalaana soo jaleecadii hore juuq aniga oon celin jiririco imay qaban adiguna jannay garab soo xariigii maad jarin majabuuti baan abid intaad joogto inay yahay jidu soo maraadhe. عجيب أبوان هذا ما أصنتها codkaaga aad u macaan yahay. waxaan rabaa inaan ku weydiiyo su-aal kale oo inkastoo hadda intaad deesaysay aan u malaynaya Cumar Dhuule inuu meesha fadhiyo laakiin waxaan rabaa su-aal kale oo inaan ku weydiiyo xasaabaha maxaa ka aaminsantaha ama jacaylka? aniga xasaabaha markii tii hore iyo tii loo fiiriyo inta aan anaga dhegta ka maqalnay intaan joognay dadka hore ayaa wanaagsan waayo xasaabo way ku fiican yahay in xiiso la isu qabo haddeer telefoon iyo wax la yidhaah ay soo baxeen internet dadkan aad isku soo dhawaadeen xiisaa ma laha jacaylku xiiso wuxuu lahaa xilligii dadku ay kala fogaayeen warqad la isugu qori jiray oo hilow iyo hamuun iyo raadin hadda hilow iyo hamuun way ka baxeen martidii bay laga tirtiraa moodaada labadaas eray. laakiin ma la dhihi karaa maadaama telecommunication uu imaaday oo dadku fogaan hadal iskula hadlayaan in fanka iyo jacaylkii inuu sii siyaaday maadaama fogaan hadal iskula hadlay? لا aniga fikradda aan ka qabo kulay fikrad kale wax qaba kartaan daawadayaal aniga fikradda aan ka qabo waxa waxay yihiin hilow iyo hamuun labadaana xarafyada dambe oo hadda kuma jiraan heesaha dambe ma ku jiraan sababtoo hilow uma qabto qafaad inay time la hadlaysid. aad u mahadsan tahay. waxaan rabaa inaan isla su-aashii mid lamid ku weydiiyo adiga ahaan daadir ahaan jacayl ma kugu dhacay? aad iyo aad aniga jacayl waa lagu guursaday oo muddo 4 sano ku badan ayaan gabadh jecleen haddana waa awradeedu gurigay joogtaa maasha allah xarunna waa ay haysaa kuley aniga waa naajaxay waa guulaystay. inta badan dhalinyaradu waxay dhahaan jacaylka koowaad ama jacaylka dhabta koowaad ma guulaysto. dad badanaa waxay aaminsan yihiin in jacaylku uusan guulaysan. dadkaas waxaan jawaab uga dhigi lahaa in jacaylku guulaysto waxaa xaqiiq u abwaan daadir. aad u mahadsantahay abwaan daadir kulanto dambe oo xiiso leh
janaalka caawa aan fadhinano waa janaalka Said MK official marka aad u maasanta abwaana soo dhawow markale ku mahadcelinaa dadka inta badan laga qaato murtida iyo madadaalada aad u maasanta abwaana soo dhawow